ولما الله الله يان دونا يا أنا أكو هذا يا أنا وقف كيجا مشرعي هالك لقوا عمامة أنت جارك أيوة عمامة مصبيح أيام دونا الله محمد سياد بري مركي ولا حكومة أيه إنها يستقبل لا تكسره إن الله ينتهي يصلح حكمك وكاقاضيا أو يكافيك تقولي واقي حري صحيح كمان واقي حري إن الله ينتهي مركا كاقلوين يصلح وكافيك واقي حري وح موقته إنه مصبيحي قاطي نظام فكر تيم محمد سياد بري مركا وحلنا برع وهلكي محمد سياد بري لقيتي أنا قمت حبت كقول دمنا لكن عد كيا كسين بينه أنا قصيجارة أيان ما أنت غير برعو إيه كل مية إيه سومالي لان بوجود تابنينا وحين نجا صديق كل مية أن مشرحين تكله شرحنا هدا هيد محمد بيحي يونس يا هدا هيد سمالي بعنك قبسن أنا قصيجارة أي نوس عميسي وحنا ندوننا ما دام أن هيد دجان كقبل كتوغدهير إن أنكشك يوحي هالكان قد عيانا أنا مركي هره وحنا هاي وحنا هاي ناساسياشي كل مية صدح درب وها صدح دردار بوها صدح دردار أيام نقيب كاهين وها اللوجي هاي أو سومالان إيو غير سومالان بوجيهين أحمد كتشاندي يبيشي سينا مركي هره وضاحيت كل مية أو أنو هاي دتكي هيل إيو هوبا لقرب تاجنا مدحوينها جمهورية سومالان سونا ساري عدك وجود بدن سيبان وهين. runtii sharaf baan ku siinay maamuus kii sharaftii qadarintiina uu naga mudan yahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo waana nu garab taagana laakiin markii aanu niri musharax baanu wadanaa oo waanu isa soo sharaxaynaa waxaana loo diiday inaanu isa soo sharaxno waxaana nala yiri laba dhardhaar buu kulmi ahaa labadii dhardhaar baana qori dhiibka isu dhiibaya ee idinku kuma jirtaan runtii horena waan uga hadlay reer Soomaalilandna waanu sheegay markii dambe ee shirkii golaha dhexe uu dhacay ee uu muuse biixi loo afduubay ee aanu annaguna ka qayb galay annagoo musharaxa madaxweyne ku xigeenka markaa wadana oo doonayna hadaanu isbahaysiganay inaanu madaxweyne ku xigeenka aanu ka dhigno bari oo xagla toosiyo noo sharaxnaa oo afduub kaana lagaga qaado shaashadaha ka daawanayseen karantuuntii lagu guray mid kalena aanu niri laba nin oo galbeeda oo midna gabiil yahay midna boorama yahay 10 kiiloomitir isu jira madaxweyne isu xogeen isuma noqon karaane annaga Siilaanyo markuu bari ahaayeen madaxweyne noo ahaa galbeed baanu siinay madaxweyne ku xigeenka oo aynu si sharaf la ku taageerno ku siina war bari nugu siiyo madaxweyne ku xigeen bariya ha qaadato gobolada bari oo dhammaha ka muuqdaan shaashadana dad badan oo tirsanayo gobolada bariga buu hoodle Sanaag iyo Togdheer ay lahaayeen goboladii bari baa ka maqan ayaanu lahaynaa ku soo dhaweysaan oo ku soo jiidaan oo aanu codka siinayna laakiin nasiib darro waan la aftuubay wixii nagu dhacayna tashaashada TV-ga wakaarkiisi inta waxaan raacinayaa haddii ilaahay ka dhigo waxa tihiin ama ahaydeen nimankii qaranka noo hogaaminayay aanu aad iyo aad ugu tiirsanayn ee aanu aaminsanayn sidaasaan idinku soo dhaweynaynay waxa ahaydeen haddii aad tahay xirsi aad tahay iyo cabdi awdaahir iyo xildhibaanada waxa tihiin haddii alla ka dhigo aan idinku soo dhaweynaynay waxa tihiin xeru dhalankii Togdheer baa tihiin de kulmiya arrinkiisa meesha lagu hayaa isbahaysiga weeyaane iyo madaxda inoo timiye waa idin soo dhaweynaynaa dadkiina doorka kula haydeen waa aragteen waxay la tahay arrintaasu soo dhaweyntaasa idinku filan mujtamaca siduu idinku soo baxay iyo halkuu iska kiin taagay ayaa soo dhaweyn idinku filan idinka intaasaan arrinkiina ku dhaafayaa bahashana waxaan leeyahay siyaasadana waynu wadaynaa oo magaranaysa fikirkeena insha Allah waynu ka midha dhalinaynaa
mahmaaha yar baan soo qabanayaa oday annaga xilligii waqti jaahiliga ayaa qolo aadan madoobaa oo qolo aadan madoobaa oo xaggaa bandarka iyagaa noo qaban jiray ayay waxay kaga beddesheen afar riyaabay kaga beddesheen 2 go' oo cadcad markaasaa odaygii baa oday xoolo badan buu ahaa labadii go' baa injir ka qabsatay qoladii aadan madoobo oo socdaalo waddada maraysa ayuu qabsaday waa loo garnaqay war nimankan maxaad ku haysataa wuxuu yidhi dambar dhalow bay injir dhalow iigu beddeleen kulmiye kama ogolin in dambar dhalow injir dhalowna loo ku beddelo ma ogolin madaxweynaha waxaan leenahay madaxweyne sharaf iyo karaamaad naga mudan tahay laakiin adiga iyo xusbigaaga ma ogolin mar labaad baan ku celinayaa inna loo ku beddelo kaligii talis askari ma aqbalayno qolada subeer awalna waxaanu leenahay aqoon-yahan baanu idii keennay axmed siinaanyo oo aad wada garanaysaan maannaan filayn inaad askari noo keentaan isku noqda baanu leenahay isku noqda codkii shalayto soo baxay waad arkayseen codkaasi intaanu idin dhaafin isku noqda baanu idin leenahay qolada subeer awal runtii rag xaggaa joogay oo markii hoosta laga xidhanyay hoolka lahaa 4 nin oo meel u cararay baad daba socotaan waxaan u malaynayaa ilaa shalay way arkeen inaanaan 4 nin oo meel u cararay aanaan daba socon dadkii kulmiye ahaa ee lafdhabarta ahaa ee codka kulmiye keenayay inay kuwa hirarka yihiin shalayna muuqanaya maantana muuqanaya mar labaadna marka dambana markay xaggan burco noo soo kaxay waxay lahaayeen war xirsi oo cidlo u cararay baa daba socotaan de way muuqanaysaa xirsi inaanu cidlo u cararin inta kale ay sheegayaan inaanay 4 ahayn way muuqanaysaa waxay la tahay rag badan aan la hadlay waan ku war 4 nin bal ka warrama waxay dhaw warnimayan waa idin aragnaaye maxaad damacsantiin xaggaa wuxuu kaxaynaysaa waa idin aragnaa arrintiinniye xaggaa wuxuu kaxaynaysaa maantaba waxaa muuqanaysaa raggii markii hore albaabka xidhanayeen maantaba baryootamayaan oo leeyahay war xaggaa wuxuu wadaan war balaarinka u kaadiyaan isku soo gaadhno kelmadda qoladaasaan u dirayaa waxaan kaloo aan kelmadda kalaan ku daraya waxay tahay qolada wasiirada ama nimanka musharaxiinta raggayagii la socday ee golaha dhexe ahaa ee odayaasha ee guurtida ahaa waxaan naga go'noyd oon iyagana ka saxeexnay haddii hoolkaa la oggolaado in lagu tartamo si daacada oo cadaalada oo dadka hawshaa wadaya loo sinaado kollayba muuse meelo badan baa laga waday hadduu inaga adkaado waan raacinaa baanu ka saxeexnay bal taa ogaada marka hore waxaa dhacday markaa arrintii nooca ahayd inay iyagu ilaa niman gunta iska ridaya garan waayeen oo yiraahdeen war meesha hoosta inooga xidha nimankuna meelahooda ha yaacayaan ha qalqayliyeen waxay la tahay maantay markaa taladii arkayaan waa tii aadan galeydhe uu yidhi maantoo tala lahayana naf baan lahaynin shalayoo naf lahayayna talaan lahaynin kulmiyaa burburay kulmiyaa waxaan dhaawaca inta leegiyo dheemashka inta leegi gaadheen raggii garan kari waaye war wuxuu waa cod tiriibkii hore 80 laynagaga hela waa 80 war imise 80aad iyo imise kun baa ilaa shalay ilaa maanta ordiyo soconaya oo goboladii kala hadhsan yihiin sidan aynu ilaa shalayto shucuurteennu ahayd ama aynu soo dhawaynaynay uma aynaan soo dhawayn jirine maxaa siyaada ahee meesha ku jira in la isweydiiyaa aad iyo aad bay muhiim u tahay anigu waxaan arkayaa waxa aynu shucuurka aynu ku kalifaynu soo dhawaynaynaa xaddigaa u sugnaan isugu nimi waxa weeye waxaynu diidanahay inaynu ku noqonno 29kii war 29kii sidii aynu ahayn yaa garanaya yaase sidaynu ahayn inaga dhigay sidaynu ahayn soomaaliyadii israacday yaa burburiyey aan askari ahayn
labiya sagaashankii innaga si innagoo isku mid oo durriyada la baxnayayna burburiyo xabadda isugu keen dhiibay saw askari ma ahayn mise qaar kale ahaayeen mise kuwanay ahaayeen hoosta meesha ka soo xidhay miyaynaan run isu sheegaynin waa inaynu run isu sheegnaa nin walowba ogow isku duubnideenna iyo wada jirkeennaasi waxa weeye oo ka dhalanayaa ragga maxay tahay mutacallimiinta aan askarta ahayn markaynu u dhiibanno xukunka u dhiibanno waxa jeclo badan iga haysa xisbiga kulmiye qoys baan ka dhashay caaqil baan ka ahay keligay baa markaa ahaa kulmiye only waa taariikhday gashay keligay baa ka ahaa ardaa axmed faarax ka mida buu ahaa keligay baa kulmiye ka ahaa golo loo dhan yahay bay jeclo badan baa kulmiye iga haysa 11 habeen buu ii xidhay cabdi xuseen dheere kulmiyaa tahay yaan 11 habeen u xidhnaa wax kale layma xidhin jeclo badan baa kulmiye iga haysa burburkiisana ku raaxaysanaan maayo waxaan leeyahay muuse biixi leeyahay inta la socota war kulmiye iyo inaga burburin war kulmiye halkiisii ha lagu celiyo war wada hadal baa ka furan war waa birmageedadii ragga halkan maraya albaabada laga xidhay kuwii albaabada laga xidhan lahaa maaha waxaan leeyahay muusow dib ugu noqo 2 point baan imka ku hayaa pointka hore waxa weeye doorashadii oo sidii loogu talagalay aanu dhicin ama xisbiga lagu yiqiinay pointka labaadna waxa weeye xalay baan idaacadda dhageysanay gobonnimo ka bilaabay sodcaalkiisii anoo caaqila baan ka bilaabi kareen halkaa haddii la yidhaahdo imika dalka soo wallaahi kama bilaabeen gurigoodii aqalkoodii uu ka bilaado miidhiyaha isugu yeedhay waxayd inuu baran ka bilaabaa awrboogays tagaa kala baydh iyo laascaanood inuu tago saylac ka soo bilaabay iyo galbeed gurigoodii hoosuu ka soo bilaabay war taas madaxweynenimo lagu gaari maayo madaxweynenimada 2 point baa yaan ku haynaa mid saddexaad ha ku darin war mid saddexaad ha ku darin war wadadii odaygu jeexay raac siilaayo raac halkii uu jeexay madaxweynaha qaranka ee maanta jooga ee aad la shaqaynaysay raac wadadiisii